بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا شبكة سمكودرس وعشر كني تعنا React.js عشر كنا حلو حلو عشر كني هراء نكسر قادناي ستة لو صدر React router كبعدين لو صدره links كسميني navigation كإيجو routes كي كور نرجريني components كمركز لبوقده URL كوده قيمتنا نحن كبرنا دونا سيده route لوجو باسكريا parameters كبعدين parameters كاللوجو ساخريا URL كا tusaale ahaan markaan ku dhufaano koorsooyinka mid kamid ah inuu ina geeyo single course kabacdina aynu helno routeska course-ka ID-giisa oo kale marka aynu ku sameeyno xaalad functionality u baahnay ama API cusub ku wacno ama aynu soo saarno ugu horeyn maadaama components-kan ay yihiin course component ayaan tagayaa waxaan leeyahay control B course component courses maaha waa course.js waxaan ku soo darayaa linkigan waxaan dhex gelinayaa wax allaala wixii course ku jira marka qaab badan baa loo sameeyaa qaab kaliya habkan loo sameeyo maaha inta markaan sameeyo linkiga wuxuu u baahan yahay to prop la dhaho to-diina waxaan ka dhigayaa si ku meel gaadha course / tusaale ahaan for URL-kaas u tegayaa waxaan kaloo soo import garaynayaa link waaye inta markaan sameeyo haddaan save dhaho waxa u jeedaan kuwan inay links noqdeen haddaan ku dhufto wuxuu tegayaa page la dhaho course/for waxaan inoo soo baxaysa 404 not found maadaama aynu ku xidhanay haddii pathkaasi aysan match karayn wax component ah inay inoo soo saarto page-kan rollback ah aynu ku soo noqonayno marka waa inuu ku soo darnaa course detail waxaan ku soo darayaa component cusub oo la dhaho course detail.csx React functional component halkan waxaan leenahay tusaale ahaan h4 ah course detail component-gii waa sameynay laakiin component-gii ilaa hadda ma aynu isticmaalin marka waa inuu tagnaa routeskeeni route-ka cusub ku soo darnaa marka waxaan leenahay path markuu yahay /course haddaad rabto marka inaad raacisid parameter waxaad taabanaysaa laba dhibcood oo column ah kabacdina parameter-ka raacinaysid tusaale waxaad raacinaysaa course ID component-ga ay soo saaraysidna waxaa la dhahaa detail sidoo kale ha ilaawina soo import garisid course detail so save ayaan leeyahay hadda halkan waxaa soo baxay course detail sababtoo ah waxaanu tagnay course ID oo marka waxaa ismatch karaynaya path-kan course-kan parameter-ka wato iyo tan haddaan doono ID-ga waa bedeli karnaa su-aasha labaad waxay tahay sidee ID-gan xaggan aynu ugu baas karayno u soo akhrisan karnaa waxaynu tegaynaa course detail-keena waxaynu soo import garaynaynaa hook ay iska leedahay React router DOM oo la dhaho use param oo kuu sahlay inaad soo akhristid parameterska loo baas gareeyay page-kaaga waxaa la dhahaa use param so use param waa hook kaasoo kuu soo akhrisanaya parameterskan marka variable cusub ayaa u qaadanaysaa hadda props-kan uma baahnin inaga taatir variable cusub ayaa u qaadanaysaa waxaa leedahay tusaale ahaan magaca dunta u bixiyey waxaad ila mid ahaado hoogana loo use param waaye haddaan console.log dhahno bal waxaa ku dhex jira variable-keena u taagan use param-kan oo ah course oo save dhahno right click siino inspect element dhahno waxaa ujeeda waa object taasoo ka kooban parameterska u baaskareey la odhan jiray course ID iyo URL-ki marka parametersku hadda waxa weeye waa course ID haddaynu halkan ka dhigno ID oo aan save dhahno meesha waxay noqonaysaa ID bay noqonaysaa marka parameterska halkan u baaskareysid ayuu halkan ka saaraya sidaa darteed sidee u dhexgeli karnaa waxaynu u dhexgeli karnaa inagoo just dhahna course oo variable-kani ahaa maadaama object yahay ka kooban hoogan .id so haddaan save dhaho 4 ayuu soo saaraya haddaan ID-gan bedelo oo ka dhigo 44 oo aan enter dhaho halkan wuxuu ka dhigi soo saarayaa parameterskayga la dhaho ID aan halkan uga yeedhay hadda dhowr parameter u baas garaysidna halkan ayaad destructuring ku samaysan karta marka halkan waxaan leenahay tusaale ahaan course kabacdina waxaan leenahay ID detail console-kan waa iska deelinaa so save haddaan dhahno course 44 detail ayaa ku soo baxay inta marka laga yimaado waxaynu u baahannahay markaynu kusoo dhufanno koorsooyinkan mid ka mid ah inuu ID-gan noqdo dynamic waayo xagga hoose waxaad ka aragtaan URL-ka inuu force ka taagan yahay
marka halkan waxaan isticmaalaynaa JSX kabacdina string interpolation isticmaalaya waxaan leeyahay course slash kabacdina waxaan leeyahay $sign iyo curly brace halkan oo kale waxaan leeyahay id marka hadda id-gan inoo ma jiro oo prop ahaan ugmaynu soo baas karayn waayo marka aynu tagno courses marka aynu render garaynay component-gan oo chorus waxyaabaha aynu soo baas karnay waxaa kamid ah keyga waxaa isticmaashaa react si uu kala garato components-ka title price marka halkan waxaan kusoo dari karnaa id-gan igu soo baas karay waxaa leedahay waxay la mid ahaado course.id sida haddii aad casharadii hore la socotay maadaama component-gan usoo baas karaynayno safe ayaan leenahay halkan waxaynu adeegsanaynaa id-gii waa destructuring maadaama id hadda destructure ku sameynay props.id id-gan halkan ku isticmaalnaa soo haddaan save gareeyo react.js markaad dul taago course id1 vue.js 3 cs basics 4 html basicska haddaan ku dhufto waa 5 nice marka hadda waynu soo akhrisanay course detailki marka halkan waxaa samayn kartaa idinkaan exercise idinka dhigayaa inaad ama API-gii wacdid oo halka course-ka id-ga le aad filter garaysatid ama adigu inaad ku samaysid wax alaale wixii aad uga baahan tahay muhiimaddu waa inaad fahantid intaan markaan ka nimaano waxaan rabnaa menuskan kala dul taagan yahay mar walba inuu noqdo selected hadda kan dul taaganahay ma garan karo xataa haddaan ku dhufto marka waxaan ku noqonayaa indexkeenii meesha aan ka isticmaalay link waxaan ka isticmaali doonaa nav link waa sida linkiga oo kale kaliya wuxuu kaga duwan yahay nav link marka la dul istaago hadba kala joogo automatic waxaa loogu soo darayaa class la dhaho active marka classkaas si aan uga faa'iideysanaysa soo meel walbo linki waxaan ku bedelinaa nav link maadaama uu ka yara advanced yahay nav link laakiin waa shaqadu waa isku midkii kaliya laakiin waxa isbedelaya nav linki haddaan aboodka booqdo oo right click iyo inspect element dhaho linkiga aan booqday mar walba wuxuu ku darayaa class la dhaho active marka classka active kala dhaho ayaan ka faa'iideysan karaa si style-kan aan tagayaa waxaa leeyahay classka la dhaho active colorkiisa waxaa ka dhigtaa red laakiin hadda kuma soo baxaya red dhan haddaynu tijaabino waa inaan important ku darnaa sababtoo ah css specificity marka la yimaado color hore u haystay marka waa important kan iyada ka baaru weyn soo haddaan save gareeyo aboodka markaan joogo red buu ka dhigayaa contact markaan joogona red buu ka dhigayaa waxaan kaloo u baahannahay css-ka baynu ku dhex jirnaaye courseskan kala dul taagaya inaanu garanno sidoo kale ka taatirno waxyaabaha yaryare casaanka yare underline-ka soo classka la dhaho course linkigiisa ama href-kiisa text decoration oo ah farta in hoosta laga xariiqo waxaad ka dhigtaa none by default soo haddaan save gareeyo hadda uma jeedaa laakiin halka text decoration ayaa ku jiray casaana sidoo kale waxaan leenahay classka la dhaho course h4-kiisa marka hafar state lagu sameeyo css-ka da taqaanid colorkiisa waxaa ka dhigtaa tusaale ahaan orange laakiin arki maysid waa inaa important ku dartaa si aad u override garaysid classka hore jiray soo safe haddaan dhaho oo dul istaago nice marka waxaan garan karaa course-ka markaa dul joogo haddaan kan ku dhufto course wan ayuu geenayaa soo hadda wax walba ay shaqaynayaan dark mode-kiina waa shaqaynayaa waxaanu samayn karnaa filtering pageska qaarkood ayaynu booqan karnaa insha allah casharkeena dambe waxaynu ku qaadan doonaa cashar muhiim ah oo ah code refactoring waxyaaba fara badan ayaynu refactor ku samayn doonaa oo sida inaynu navigationkan oo kale pageskan geyno component gaara marka aad iyo aad ayay u mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq